qof waxaan rabaa marka inaan idiin sheego tadamulka sheelka waxyaabaha aanu ku imaan karin jacaylka dhabta ahi intaanan ka hadlin waxaan rabaa inaan idiin sheego ugu horeyn jacaylka maxaa dhaliya siduu ku dhashaa horta jacaylku dadka qaar waxay yiraahdaan wax la taaban karo ma aha wax la arki karo ma aha wax la maqli karo ma aha intaasiba waa been jacaylku waa wax la arki karo waa wax la maqli karo waa wax la eegi karo waa wax abuurmi karo oo qofka abuuri karo ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wajacalna baynakum mawaddatan wa rahma dhixdiina waxaan dhignay jacayl iyo naxariis haddii aanu jacaylku ahayn wax la arki karo ama la maqli karo ilaahayba dhixdeena muu dhigeen okay jacaylkan aan ka sheekeynayna hadda marka waxaan rabaa inaan idiin sheego waxyaabaha uu ku dhasho oo jacaylka abuuri kara waxaa ka mid ah waxyaabaha la yiraahdo tadallulka ama jajabnaanta inuu qofku isjijabiyo oo hadalkiisa uu naxariis geliyo oo si dabeecsan oo deganaan dadka ula hadlo totally waa xaraan guurka ka hor inaad isjijabiso oo si degan aad ninkaaga ama xaaskaaga aad ula hadasho waxyaabaha kowka ah ka mid tahay diiniyan ma banaana qof aan ninkaagii ahayn ama xaaskaagii ahayn inaad isu jajabiso hadalka u dabciso si naxariis la aad ula hadasho waa qodobka labaad jacaylka waxa dhaliya wuxuu yahay daacadnimadana lama ogaan karo guurka ka hor sababtoo ah inta aad xidhiir leedihiin qofkan wuxuu kuu soo bandhigayaa inta uu ka wanaagsan yahay wuxuu kuu soo bandhigayaa inta uu ku fiican yahay laakiin markasta oo guri gashaan oo aroos gashaan waxaad ogaanaysaa qofkani wax badan uu ka qarin jiray oo soo bixi doona qofka ninka raga ah ama gabadha haweeneyda ah ee xaas kalena inta ninkeedu ama xaaskiisu ay ka og tahay kama ogaan karaan dadka kale sababtoo ah waxaad qiyaastaan qof aad 24 saacadood joogtaan intaasoo sano wada nooshihiin wada seexanaysaan soo wada kacaysaan wax wada cunaysaan maalin kasta aad sheekaysanaysaan kama qarsan kartid wax kasta oo gudahaaga ku jira qodobka saddexaad waxay tahay oo jacaylku uu ku yimaado run sheegista inuu qofkani run kuu sheego ma ogaan kartid qofkani inuu run kuu sheegayo iyo inuu been kuu sheegayo guurka ka hor sababtoo ah sidaan sheegnay qofkani wuxuu kuu soo bandhigayaa inta uu ka wanaagsan yahay wuxuu kuu soo bandhigayaa inta uu ku fiican yahay xataa been ha noqoto wuxuu ku oranayaa waan tukadaa ilaahay baan ku xidhanahay ehlu salaad baanahay waan naxariis badanahay dadka waan jecelahay daacad baanahay waxaan rabnaa inaan kala saarno qancinta iyo jacaylka farqi baa u dhaxeeya ka helitaanka iyo jacaylkana farqi baa u dhaxeeya xiisaha iyo jacaylkana farqi baa u dhaxeeya jacaylka iyo kalgacaylkana farqi baa u dhaxeeya dadku laakiin badanaa way isku khaldaan oo way isdhex mariyaan ustaadkeena khayr allah siiyo iyo walaasheen xaaskiisa allah isku barakeeyo wuxuu noo sheegay in xaaskiisa uu arkay deedna uu ka helay deedna sidaas ay waqti uu ii sheegay hadda ilaa 6 bilood ku dhan inay wada sheekaysanayeen kadibna ay reer yeesheen laakiin waqtigoo yar ustaadka anaa su'aal weydiin lahaa waxaan oran lahaa war xaaskaaga markii koowaad aad aragtay iyo markaad la aqal gashay goormaad si fiican u jeclaatay markiisa hala gaaro marka waxaan rabaa marka inaan idiin